daawadayaal waa mar kale barnaamijkii maadiye sheeko wixii si toos ah in kaga imaanaya studio JTV ee magaalada Baraawe waxa barnaamijka si toos ah in kula socodsiinaya Fuad Shobla Cafe iyo waliba hana xilajano waxaan barnaamijka ka maqayn kaalimaha suugaanta iyo daawadayaasha masajada ina soo direen sheekooyinka ay daawadayaashu ina la wadaagayaan ee barnaamijkan maadiye sheeko barnaamijkan toddobaad walba habeen kasta oo Jimcaha ayuu ka baxaa JTV studio magaalada Baraawe ayuuna si toos ah idin kaga yimaada barnaamijkan hagaag hani barnaamijka toddobaadkan maxaad inoogu talagashay inaan ku daafurano waxaan inoogu talagalay inaan ku daafurano hees oo inaga soo codsaday fanaankeenna qaaliga marna walaalkay Samiir Cabdullaahi Cabdi Samiir Daacad niyada dankaagi wali
naawilaysay intaan nusqaamine nabarada daweeyo neef caashaq. waa hagaag daawadayaal heestaasi waxa ay daafur u ahayd barnaamijka maad iyo sheeko. dabcan sheekooyinka ay asxaabta barnaamijka ku xiran inoo soo direen aad ayay u qosol badan yihiin waana ay xiiso badan yihiin sheekooyinka. toddobaadkan waxay la tahay sheekooyinka inay xiiso gaar ah leeyihiin hani sidaad aragtid fariimahana loo soo diray. aad iyo aad hagaag bal sheekada ugu horeysa aan soo qabto daawadaha nasiibka u yeeshay in sheekadiisa lagu bilaabo barnaamijkan maad iyo sheeko waa Deeq Xidig waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. sheekadiisu waxa ay u dhacaysaa sida tan: macallin ayaa ardaydiisa ugu sheekeynayay qiyaamaha waxaana uu ardaygii ku yiri dadka oo dhan waa ay dhimanayaan dhulka iyo cirkana waa la laalaabayaa. waxa dhahaya macallinka wuxuu ugu sheekeynayaa ardaydii saacadii qiyaamuhu ardayda ugu sheekeynaya. kadib ardaygii ayaa macallinkii weydiiyey arday kamid ah ardayda ayaa macallinkii weydiiyey waxana uu ku yiri macallin maalintaasi dugsi ma jiraa? macallin maalintaasi dugsi ma jiraa? macnaha saacada qiyaamaha iyo gelgelashada dhulka cabsidaas dhanba ma ku jirta. ninkan walwalba wuxuu ka qabaa dugsiga inuu fasax yahay inuu jiro inuu kala ogaado rawaas. dabcan sheekada aad bay u qosol badan tahay sida ila tahay. aad u weyn macallin basbaas ma ku soo maray? may kayga malab buu ahaa. macallin basbaas macallinka kulul waa ilmaha ilaan aniga oo baari asaga malab ma noqon karo. aad iyo aad sabti sarbi kuleel aan maqli jiray. hagaag sheekadaasi waxa ina la wadaagay Deeq Xidig oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheekadaasi ina la wadaagay. dabcan hayahani bal dhankaaga maxaa jira toddobaadkan? dhankayga wallahi taada mid ka daran baa jirta. haye Maryan Indha Deeq oo joogta Kismaayo waxay inala soo wadaagtay sheeko aad iyo aad u qiso badan oo qosol badan. nin reer xamar ah ayaa tuug soo bursaday. faad waliga tuug soo bursaday waa ka cabsana. nin reer xamar ah ayaa tuug soo bursaday. ninkii sidii uu ordayay wuxuu damcay inuu galo xaafadii ayuu gargaraacay. markuu gargaraacay aabihii ayaa maqlay nasiib wanaag. haye markuu maqlay ayuu ku yiri yaa waaye abba waa aniga ee iga fur albaabka tuug ayaa i bursanaya. markaas ayuu ku yiri hadii tuug reer xamar tuug soo bursaday xaalka ma fiicno. hadii uu tuug ku bursanayo ma albaabka soo tusaysaa ma guriga hareer martid. laakiin afka xamariga ka maqan afka xamariga hadaa ku dhihi lahayd hadaan garanayn ka warbal waxaaga adigana igu dhahda fiicnaan lahayd. muxuu yiri ay tiri odayga albaabka hadii uu tuug ku soo bursanayo guriga soo tusaysaa ma wayay dabcan odayga maadaama reer xamar uu ahay waxaan u maleynayaa inuu dhahay hadastuu ku bursahoy mininka ma soo tusay saasma ya hadastuu ku bursanoy mininka ma noo keenay almiina soo dhumina soo warin yaasha fahmi waayaan ma dhinac marsiisid. haye sheekadaas sheeko aad u qosol badan waay. aad iyo aad inaan qosol ka qaadan doono horaan buu sheegay. aad iyo aad sheekooyinka bulshada dhexdeeda ka dhex jira waa sheekooyin aad u qosol badan. aad iyo aad maad iyo sheeko waan ku soo qaadan doonaa sheekooyinka qaar ee bulshada ka dhex jira. lama kala xanaaqaan way ma markaas aad baa loo kaftamayaa. oo agarta sheekooyinka reer mudug iyo reer xamarta ugu qosol badan. markan hani xila jano barnaamijka maad iyo sheeko ayaa daawadayaal weli la socotaan. barnaamijkan cidda doonaysa inay ka qayb qaadato waxay sheekooyinka iyo waxyaabaha kale ay inoo hayaan inoogu soo diri karaan ciwaanka shaashada ku xusan ama number telefoon ee shaashada ku xusan. whatsappka ayaad noogu soo hagaajin kartaa fariin codeed ama waxaad inoo soo diri kartaa video clip adiga oo markaasi sheekadaada ka sheekeynayo video ahaan ayaad iskaga soo duubi kartaa waad inoo soo diri kartaa. haddii aad ka xishoonaysidna qoraal ayaad nala wadaagi kartaa. waxaan idin xasuusinayaa inay jirto haddii ay tahniyad dhalasho ay jirto amaba caruus oo kaleeto inay inala soo wadaagi kartaan. anagana waxaan jecelnahay si qurux badan inaan idinkugu soo dayno. aad iyo aad barnaamijkan waa maad iyo sheeko. sheekooyin aad u qosol badan ayaa inoo soo socda laakiin hani waxa iga qoslay aan rabaa bulshadan inay ila daawadaan oo iyaguna ay ku qoslaan. haddaan qosla aniguna ama bulshada dhexdeeda aniguna ku ordaa gabadha atriishada way keed ee quruxda badneed ee nasteexa inda la dhahay anaa mood inay amaanayso nasteexa inda la dhahay aad iyo aad inta soonka uu qabtay way soomneed inta soonka uu qabtay
baahi iska lahayn weyse hagaag kaasee damacda jikada waxay yaala inay gab ka siiso waxay muuqaalkan bal daawadayaashaan u sii dayno muuqaalkan nala daawada daawadayaal daawasho wanaagsan wax ma dhowa yogadkii gabadha yartaa waa ka dhammaaday carruurtii waa tobankii maxaa dhow caawa waxaa la afurayaa baa layidhi tobanka habeenimo tobankeeda kale maana waaran يلا سحب الله اكبر قرار كنت تمام استري ما حاجه اصير ايوه اوكي wadnuhu ku istaag wadnuha ma هذا istaagistay حبيبي ما حاجه كودا ايوه اوكي وافكار حبك هي يلا فكان ما حاجه كودا حبيبي maxay oon lahaa wadna waa ma tagay waa xanuunsanahay تسمع soo jeedna ma tagay افكار حبك هي يلا صديق صرنا كلامنا waa ma tag مو حنا متجه ها متن ها انا الكي هذا ee maxay dhacaa ma tagay هذا انا حاج maxay tahay marka maxay حاج tahay ما انا maxay يسكن tahay كان حاج ما انا يسكن كان maxay tahay horta alaabtan uma eka matagu ma ekee maxay tahay marka iga ilaaliyan ku dhaha ee alaabtaas maxay tahay de waxa waa iska aragtaa waxay yihiin ma maarata alaabtii guriga sodayga ka qarabtay guriga dhanba sodayga ma cuntaad malaysaa oo hadda maxay tahay war waa taanku waa inay socontahay dhadhami waa ma tagay iga ilaaliya. ee beste marka Allahu Akbar. nasiixaashida ugu dhici karanayo guriga wixii yaallo dhammaad war waa taanku waayaa baan ku iri waa ma tag caawo dhan Hey. tabcaan baa aha buggaasaa layga dheganaa Yes, shalay yes, toole yes. anoo suuxsuuxaya Hey. oo saas leh Hey. oo saas leh afurkii meesha yaallina xabad kamaan cune waxaan ku iri Hey. buggaasaa layga dhegay Maxaan? laba jeer hadda cawshay urunta macaan ilaahay baa ku dhashay ma xanuunsan tahay waa maxaa waan yaabanaa matag wax matag baa ma aniga ay qofka weynaaday aaminayna ilaaha illa Ya. allah waxay u sheegaysa xaloo dhan waan ku kici waaye dee waan ku kiciyey war ka kac war saan Ma war anaada xitaa kicisa? feer war xitaa hig war waxaan ku sameeyay ardaalkii safarkii aan ka imid weeye de malaha maaragtay iyo orodkii wallaahi bila waan adna yaabanaa waxaad iga naxsatay ha inaa lillahi si aan siba ahayn wadnaha afka iyo bal soo bax aan sarrabta ku geeyo bal soo hay bax bal waayahay Soo bax. qashinkaana ururinayaaye si aan usii tuure haddana ku noqon rabtaa mayma maxaa ku noqdaa dee warna aamin baanu ku niri waa mata hor matagayga cundee marka ilaaha laakiin ma subax soddonkiiba wax yar baa noogu dhiman be adigu waxaas afka intaas ayay leedahay war wax ku He. sheegay waa matagayna waana xanuunsanahay laga Ilaahay yaabo xitaa baa- inaan ugu leenahay ilaahay baa joog ilaahay baa joog say maasha allah ilaahay baa joog alla maanta waan eegoobi kara alla cunayo walla rabadaan ninkii ay saan ku tahay waa barbareed alla maanta waa eegoobi kare wuuba ku adkaystaba inaysa haddaana dhihilayo hor dhadhami muxuu samayn lahaa walla iyo bille aniguna waxaan baahayba maskaxda socotay taatikada waa laqsi saxadhe ilaah baa soonku nagule meesha iyagaa nagule annaga waxaan odhan dejinaynaa amaaradu inaan raadiyaa ya haddana afurkii wixii baan usii diyaarinayaa waxaygana waan diyaarsan xagga iyo musqushaan la tegay maanta jika dambe laygu arki maayo musqushaan ku degsiyo gaajada macaanka hani waxaad u malaysaa dabcan sheekadan oo kale way kugu dhacday u malaynaa ha ku sheegin xagga soonka weli ma lagugu qabtay adoo wax cunaya ha ku sheegin waa jeclaa waxda waa mantagay dhadhami ma tiri ma sidan ku dhaho matag laakiin waxaa idinkala yaaba indha adayg dumarku way indha adag yihiin anuu laka sidaa maahe waa indha adagtihiin faad waxaa moodaa galabta aad iyo aadna u qurux badan tahay waxbaa saa'id kuga ha iga xishoodsiinin yaa
waa hagaag hani sheekooyinka xiga ee daawadayaasha ama asxaabta barnaamijka ku xiran ay noo soo direen ayaan sii ambaqaadina cismaan cabdiraxmaan oo jooga gobolka Bakool gaar ahaan degmada Qurac Joome ayaa la yiri degmada Qurac Joome ayuu joogaa waa Cismaan Cabdiraxmaan wuxuuna la wadaagay sheeko aad u qosol badan sheekadan markaan akhrinay aniga xitaa waa ku qoslay bal daawadayaasha iyaguna hayn la maqlaan hadda ka hor ayaa nin reer baadiye ah dameer ka lumay kadib magaalada ayuu yimid hotel ayuu tagay qol ayaa la dejiyay hotel ayuu tagay qol ayaa la dejiyay sariirta quruxdeeda markuu uu la yaabay ayuu is yiri adiga waad wasaqaysan tahay sariirta hoosteeda bal seexa caawa sariirta aad u qurux badan tahay sidaa darteeda wuxuu jeclaystay inuu sariirta hoosteeda seexdo sariirta hoosteeda isagoo jiifa ayaa hotelka waxaa yimid lamaanihii ayaa isla qolkii reer baadiyaha jiifay la soo geliyay ayadoo loo maleynayo in ninkii reer baadiyaha uu qolka faaruujiyay lamaanihii marka ay seexdeen waxa bilaabatay sheeka bilaabatay sida caadiinka waxay la tahay bisha malabka in lagu jiray shahar casarka odayga wuxuu yiri macaanay markaan kula jiifta adduunka dhan baa la horkeenayaa uu yiri isagoo wuxuu islaanta xoogaa wuxuu islaahay romantic oo badan malaha ninkii reer baadiyaha ahaa ayaa sariirta hoosteeda intuu ka soo booday adduunka haddii lagu horkeenayo dameerkii hadda itusi uu yiri ninkii reer baadiyaha wuxuu yiri inuu ka hadlayo kana jacayl uu ka hadlayo kana dameerkeyga aad iyo aad wuxuu yiri ninkan oo hadiiba adduunka dhan lagu horkeenayo dameerkeyga itusi uu yiri ma ii sheegi kartaa dameerkeyga meeshuu joogo uu yiri dameerkeyga ma aragtay uu yiri sheekadaas aad ku qosolka badan waxayna la wadaagay mid ka mid ah daawadayaasheena Cismaan Cabdiraxmaan oo jooga gobolka Bakool gaar ahaan degmada Qurac Joome ayaa ina la wadaagay daawadayaasha iyaguna waxayna sheekooyinka ay hayaan waxay noogu soo diri karaan haddii aan markale xusuusiyo nambarada shaashada ku qoran kaalmaha suugaanta markaan daawadayaasha haddii ay nagula nastaan bal adigu maxaad u soo qaban lahayd hees ay dalabkeedu tahay qofaan aad u jecelahay aniga sabqan baday haye ayaan jecelahay inaan sii daayo haye jecelahay ku sheeg dadka qaaday laakiin aniga waxaan ka leeyahay toddobaadka saba saaxiib cusub ay sheeg waan ka jahil bixinaya daawadayaasha toddobaadkii hore qofkii ay igu qaldayaan ama ay igu dhijinayaan ma ahan waa saaxiibkay marna waa walaalkay shaqay naga dhaxs Maxamuud Maxamed Carab balse markan waa qofkeen sidaas noogu kala qaad warka aan fahanay anaga ina saa jooji wax dhibaato ma jiraan waa dhamaatay dunidani dhammaadkiyo gabal dhaca istaagtay idibkay ku joogtiyo xarku galay dhigteedii dunidani dhammaadkiyo gabal dhaca istaagtay idibkay ku joogtiyo xarku galay dhigteedii libay ku curato marka dhinacka aw daba dhankala banaano qabyaday la dhalatay libay ku curato marka dhinacka aw daba dhanka kala banaano qabyaday la dhalatay qofka aad wax dheer tahay
waxaa jira inkaa dhiman oo loo dhammaystiray qofka aad wax dheer tahay waxaa jira inkaa dhiman oo loo dhammaystiray laba dhagax haddaa tahay nin dhexdood ka soo baxay raganimada dheera ruux ku dhaafsan baa jira haysodhan nin muu dhalan ruux ku dhigmo kale haysodhan nin muu dhalan ruux ku dhigmo kale dhulka waxaa kugula nool nin hortaa adoon dhalan haysodhan nin muu dhalan ruux ku dhigmo kale haysodhan nin muu dhalan ruux ku dhigmo kale dhulka waxaa kugula nool nin hortaa adoon dhalan ta dunida soo maray maalmaha dhanaaniyo waqtiyada isdhalan rogaa casharkooda soo dhammay dhibta dunida soo maray maalmaha dhanaaniyo waqtiyadan isdhalan rogaa casharkooda soo dhammay marna dhamaac ku joogsaday marna dabina loo dhigay marna dhaxan dabayshaday marna dhamaac ku joogsaday marna dabina loo dhigay marna dhaxan dabayshaday nin dharaara soo jiray waya arag dhammaystiran dhulka meela fara badan cagihiisa soo dhigay ha ku noqon dhallaankii waalidkii dhalmada baray ha ku noqon dhallaankii waalidkii dhalmada baray waalidkii dhalmada baray nin dharaara soo jiray waya arag dhammaystiran dhulka meela fara badan cagihiisa soo dhigay ha ku noqon dhallaankii waalidkii dhalmada baray ha ku noqon dhallaankii waalidkii dhalmada baray waalidkii dhalmada baray ha u dhigin tallaabada sidii aanad dhimanayn dharaaraha cirkuudda oo haddaad dhiilka buuxiyo dheraguun la gada tahay waxaad dhaadaysaa jirin waad dhaliila badatee dhulka soco in kugu filan waayahay sheekooyin kale oo aad u xiiso badan ayaa inoo soo socda weliba waxaa inoo soo socda muuqaal aad u qosol badan wiil yar iyo sanadkan maamooyin waxaa jira moogtahay maamo markaad tiraahdo macdaan kaa weynahay ku dhahay sheeko noocaas ku saabsanaaba hadda soo socota oo aan u bandhigi doono adeer may sidee marka ayagu u galaanaysaa inay anigu ma jecel eedeeniyo xoogaa garay shaar baa igu aragtay nin weyn ay waayahay barnaamijka maad iyo sheeko ayaad weli la socotaan daawadayaal markan waxaad ku soo dhawaataan ruwaayad yar oo aad u qosol badan oo ay wada jilayaan fanaaniinta caanka ah waa fanaanada caanka ah Faadmiina bal ruwaayadaasi qosolka badan nala daawada daawadayaal hareeri dheer hana badano waa kugu haweenahaye hadiyadii jacaylka hadiyadii sahoo iga hooye yarisko dhaydo fitamiin meelanakus waxaadii la wareero waxbaash sila laga baxaano kuweka kawaaba socotaan
والله طريقة خفلة استاذ. لا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان هاي يورو يا باي يا كلام أنا يا أبو إسكول كان واك إماتي أنت كإماتني يا كايا بنا حبري حافظ على شيء كيسي جرد هاتا بعدنا جت كانوا استاجا أنا سأعود هاي مخلصت حبروح حافظة يا برو دوسة ما خجراتها هذه أنا المخجراتة أنا لبي لا أطلع بجراها أعوذ بالله وأنت بسم الله الرحمن الرحيم تم إسرائيل سنة سنة كان هاد إيجاشية لا لا إلا جدك كلاحة وأنت دأك وبدنا أملا إلا من الصنعة هاي أنت اللي نبدأ سجوك سجدك كخلاء أنا أملا هاي كالبة الدنيا ويدي هاي أنت سجوك سفر هاي سهرتها مرعة أنا لا مش هي حالة لا أنا لما جرت علي لها برشلونة أنا استاجا وجي ما أنا هذا وحاك صوئي ماضي وجي سي أملاسة سال إلى تجرب مثل هندي سأقول شيء سأل أنا نفتكر وحلا وجينا عندها صوشة طوخية وح أو عقل جوبي عمل لبعت لما معاه قفور كان معقول أكا سوير حياة معقول أكا أفرت إسياد لحنا واجد كل سيادة ما برتم مسك على اسمه إيه يا رنا بلو كذا إلكو سجاش جير أو عشان 600 أفرت سنة صار أنت هالمر صوص فيه برتم فيه أنا يريد ديزاين كله حتى نقول فيها نجا ساعة حرتنا نجت أنا خبر أسألني إسكتنا ويلي شو أنا يرى قبم إني دعوة هاي سؤال كله يصدق ستمانة مية وفاشون خد دولة دهوس محا كله مية بس أنا أقول عزة فيها ما يعني عمالك كله فوق دقيقة مية شهنو أبيع يا شهنو أبيع نيا أما يوسوح لا هذا يا خيو بس محلاي مركلا أسكو إيمان هرت أنا متقانة لكن أنا إسكابر دنتا يوقصبتنو يعني شيء حوله ملاذ أرض هاي ستاتي أرتلا ده أدمي سيدا قف وين هذا وجه ده لكن هو راع والبس بس أنا نص أبو يا وقت مكوهاية في أبو أنا جا أوصان وشدن ما أردت هذي بلا بلا استاد بس أنا نص أني ودد قل إترناك تجرت ودد قل ودد قل أنكو داني أب كم أبور اسكو صارت ما اسكو عيارة يا كايو على كلا اللي هلا اسكو قل أنكو وقل الدنيا قوي هذا شيء أنا أول مقولة يا بناي بدوين كي يستاجي قل أنكو ده قل يا كات سجنا أنا بدأ في عنا هلينا خير نقول الله سفر أشبه مرت ماشان جلوسكي أو كابويال كي تروات إلى مدري دي عم تبع كأني رأسس كده دول كسكده ما خديها عيدة كادرة مسك خورا أنا مكاسر إسكده شو إنجيجيا يكون لحم سنجرانة أما أفرت إيشان سنجرانة رما إننا تتوين أنا يرتا waxaan ku sheegaa soo jeeso maxaa hadda ma yarta soo noqda hadda weynta ahay xoogaa magaalada ugu xubaato u garat inaan kulli sheed inta igu qasabtay iyo warad meelaha deginta jaakada ku jeexjeexanta wax ka bedela jiriyoosa inna waxaan jiriyoyaa wax aan ku dhagtid miya kool lacab fitimiin xislaan ka soo waxaas howlahayga markiiska baxa bangalafda waxaas howlahayga waxaan deginta area la deginta ana xaafada ma degan waxaan deganahay قد وين قداشي صدقنا حاجة لقاها أنا قوي ماني أنا لقيناها لقده لقولا ورفعت ثاني كاي سام مركب هرو حواي فرانس كويس مقرت هذا الأوركان هاي مقرت هذا اسمه لبستي كورنت سمجو جسد ها كفتت ستحبر لك عليك وأنت ما وجد ما تريد يا ستي قالت الحمد لله تمام في مشكلة ما أنا أنا دقيقة مياه أنا ما هاي بنت بس لا اسمه هنا حوالي حوالي مرفع جيم لو أخذ ويجي ده سما يا شو تجوا اسكت مات يا سيكس باك سجال كش نوع لعبة هنا يا تام قرت أدنى قوة هستا مقالة حواي ما كاسدو شاك دقيقة جاوه وهجاج ده هني بل شيكاdas maxaa kaaga baxay oo maxay iga fiirinaysaa meelo dulduleelaan ka raadinaya meelo ima duleesh ceeb way waxaas ceeb meelo dulduleela haye iska jeclaa dharkaan oo kalena iska xirtaa haye meelo ima duleesh laakiin gabdhaha sanadkan jira maxay yiraahdaan dharka hadda soo baxayo fashionka maxaa tiraadeen jilbaha ka jajaxan soo gasho
أنا ضدك هراء arooskaagan kusoo labisana dharkaas أكون شيء وحاس أروس كي لو هرا waagaag qaybihii dambe ee barnaamijka maad iyo sheeko ayaan isla soo gaarnay barnaamijka haddii aan dib idin xusuusiyo daawadayaashu waxay fariimahooda inoogu soo diri karaan nambarada shaashada ku xusan whatsapp number ayaa inoogu soo diri kartaan gmail facebook waad inoogu soo diri kartaan dhammaanba ciwaanadu waxay ku xusan yihiin shaashada sidoo kale waxaan daawadayaashu xusuusinaynaa video clip ayaad iska soo duubi kartaa cod ayaad iska soo duubi kartaa waadna inoo soo diri kartaa daawadayaal hagaag markan hani waxaan doonayaa inaan soo qabto sheeko laga soo diray degmada Xarfo ee gobolka Mudug waxa soo diray wiil magaciisa ku soo gaabiyay jaamac هل يلابن السلام يا مدام مدك وكسر دربا maadaama Mudug uu ka soo diray هذا وين waa hagaag لا هذيك وقع بحسن oo ku sheegay bal hadda sheekadana naragna afka Mudug aan arkaba hagaag jaamac waxa uu yiri uu sheekada ku bilaabay oday reer miyi ah ayaa habeen asagoo caruurtiisa iyo islaantiisa la hurda wiilkii uu dhalay waa wiilkii uu dhalay goor saq dhexe qaylo la soo booday macnaha wiilkii uu dhalay soo naxay hurdadii ka soo naxay goor saq dhexe ahayd qayluna la soo booday hagaag odaygii baa isna soo booday iyo habartiiba marka odaygii baa yiri mar war maxaa kugu dhacay oo la qaylinaysaa wiilkii weydina war maxaa kugu dhacay oo la qaylinaysaa aad iyo aad wiilkii baa yiri aabe anoo qodax imuday baan ku riyooday wiilkii dhaay aabe anoo qodax imuday baan ku riyooday aad iyo aad odaygii baa ku jawaabay intuu odaygii soo booday buu yiri wiilkii dharbaaxa dabada afkareer mudug saami maad iyo sheeko lama kala xanaaqaan saas ma hayno afkareer mudug saami yani والله وهذا لقب سلمان bal aan aragna qoraalkan wuxuu leeyahay wuxuu yiri ninkan jaamac wuxuu leeyahay wiilkii odaygii baa odaygii intuu soo booday buu wiilkii dharbaaxo dabada u qabtay buu yiri macnaha uu ku dhuftay wayaan de ii turjumaana u baahnaa ya laakiin ma laga qurux badnaan qof waliba afkiisa ayaa u qurux badan sidaas baa waaga anaga reer xamarta markay eraya qaar ay qaldaan xogaa reer mudug si kale u arkaan anaga waa ku qasbanaa inaan si kale u aragno haddii kale waa inaan sharax xaafadeed qabanaa ana ku turjumaanaa kaligeen in lagu qoslama ka baqan haye bal af Soomaaliga waa ku dhamaaday aan ku iri meeshan odaygii soo booday odaygii baa intuu soo booday wiilkii dharbaaxa dabada u qabtay oo yiri aniga marka hore aan akhrinaya intaan yar xogaa waa isku xasheeday maamadii baa tiri wiilka hooyadiis baa inta soo booday ayadan waxay tirayaa la yiri war maxaa wiilka u dilaysaa maxaad wiilka u diraysaa wariyoonayay odaygii baa yiri muxuu kaba la'aanta u seexanayay hebelba macnaha riye qodax ku mudimaho kaba la'aan muxuu u socday riyaba qodax ma ku mudi leen markaas laakiin aniga waxa igu yaabka badan haniye erayadan hadda dabcan dharbaaxa dabada u qabtay iyo ereyo kale waxaa jira waqooyiga laga isticmaalo lambarkayga ma haysaa marka la isiraado dee dhakadan ka ada u xil saaran waxa adigu dhulkan ka yimid laakiin dadka baraawayaasha jaamac badhawe uu ku soo daray marka badhawe xoogaa waxaan isiri magaca badhawe amuusan ahayn oo adi aqal laakiin waan ku dhawaaqayaa jaamac badhawe nin la yiraahdo ayaa sheekadan ka soo diray degmada Xarfo ee gobolka Mudug aad buu u mahadsan yahay jaamac sheekadu waxay ahayd sheeko aad u qosol badan waxaan filayaa toddobaadka xigana sidaan oo kale inuu inagala qayb qaadan doono barnaamijka maad iyo sheeko asxaabta kalena sidoo kale mar kale ay inagala qayb qaadan karaan waxay ay inoo hayaan markaas hayahani maxad haysaa وهكاك فؤاد عثمان حسن oo ku nool degmada Qoryooley ayaa inala wadaagay sheeko aad iyo aad u qosol badan waxaad moodaa inuu ka hadlayo dadka marqaanka barnaamijka maad iyo sheeko asxaab badan oo isku keena waa Soomaali weyn oo dhan عثمان حسن oo jooga Qoryooley degmada Qoryooley laba qof oo alkooleysta ah ayaa meel fadhiyay dadka marqaanka sheekadu markii laga sheekeenay Fuad maxaan dareenta waa dad aad iyo aad u xamaasad badan weeyaan aad iyo aad dadka marqaanka daris malna
odaya mar wuxuu iiga sheekeeyay dadka markay cabsan yihiin oo kale wuxuu yiri maxay u dhacdhacaan oo gabgabaan way weydii ma aqaanan dhah sarqaan waay ma sidaas ma yiri kulaha qofka markuu cabo qamriga sankiisa aad u dheeraada dadku ka leexina كلبير عند داوين شري أو حنكو أركي أتريشي أتورو مركي إسلون كنايان لون كشة هذا يسكلوا فهمان وان نذكرها اللي قلنا هذا إيش منايان هاي مركز وحي إسليه المركز إيش منايا حاجة رومانتيك نوع شليان شو مسكوا وحو يعني حتكبح يا إما وقتها meelaha lista aad markaas wuxuu leeyahay hadii aan damcayna ku shumay sankaaga ayaa bitaabana inaan aad buu dheer yahay aad marka dadka waa sax marqaamo waxay dad sankooda ay dadka ka cilmi dadka marqaamo waa iska normal way rooyin dadka khamriga caba sanka intuu dheeraado markaas waxay u maleeyaan hani markay ka hortimaado sanka inuu durayo u maleeyaan saas ugu leeyahay alkoleysta ayaa meel fadhiyay kadibna waxaan soo maray oday waayeel ah haye oo u socday masjidka xilligii salaada subax aad labadii qof ayuu weydiiyay dhanku masjidka ka jiro halku masjidka ka jiro taawadiyaal waxaad moodaa afkayga inuu idinku adagyahay waan ka raali garanayaa turjumaan baa meesha idin fadhiyaa ka baqanina aniga waxaan u turjumayaa reer koonfurta reer mudug ma aha wixii reer mudug dhankayga weeyaan wuxuu marka u socday masjidkii salaad subaxii markaasay ku dhaheen adeer masjidka igu toosiyay ayuu ku yiri dhalinyaradii meesha fadhisay odagay dhahay aad ayaguna aad xamaasadooda u kacsanadooda saqaan ay ahaayeen aad markaasay ku dhaheen adeer jidkii masjidka ayaaba toosin weysay kii jannada sidee ku toosin ya jidka masaajidka maadaama uu toosin waay kii jannada sidee ku toosin okay jidka jannada loo maray aniga ma dhibaato badne mararka qaar markaan hurday laga yaabaa inaan dadka harantiyo asalkiisa marka anoo hurday inaan dad harantiyo waa laga yaabaa laakiin anoo soo jeedo dadka wax ma ku dhufto waayay hani sheekadaas aad way u qosol badnayd waxay sheeko aad iyo aad u qosol badan toddobaadka dambe waa rajeynaya daawadayaasha inay dhankayga u soo badiyaan hagaag wallahi gabadha sheeko soo dirtay waxaa la idhahaayay tira Yusra Habi wow xela jano Yusra Habi atimid hagaag xela jano baa laga qaadi rabaa waxay tiri waan idin salaamay dhamaantiin bahda JTV gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijkan Fuad Shobla Cafe iyo waliba Hani xela jano magacaaga laga ma tagin yahay xanaaqin way sheegtay kaga qaaday Yusra dhamaan bahda TV-ga aniga afkooda ku hadlayo waxaan ku leenahay mid taalacaynayaan hawada ku soo marinayna mid taal lamid ah hawada ku soo marinaya anigana saasoma aad weyn turjumaanka ku dheeraysan laba gabdhood oo saaxiibo ah ayaa maalin iska wareysanayay ragga dooq ahaan ay guursanayaan mid baa la weydiiyay nin noocee ayaad guursan lahayd hagaag waa su'aal daweyn aad gabadhii la weydiiyay nin noocee ayaad guursan lahayd waxay ku jawaabtay waxaan guursan lahaa bilyaneer ee tiri alla gabdhaha lacag maxaa laga waxaan guursan lahaa ee tiri bilyaneer haddana waxay weydiisay hadii la waayana aalayir markaas ninka bilyaneerka aad guursan lahayd hadii la waayana gabadhii kale markaas ay ku tiri milyaneer ayaan guursanayaa ay tiri marka okay wali su'aal aad daba socoto qoftan tanna waxay leedahay marka hadii milyaneer laftirkiisa la waayana وسؤالي جاب بليونير la waaye صح مليونير tire مليونير hadii la waayo la yiraahdo wali way daba socotaa hadana waxay ku tiri hadii la waayo mid xataa 1 milyan haysta ayuu ku jawaabtay marka mid xataa 1 milyan haysta waan iska guursanayaa ay tire hadafkeeda ayaa lacag kadib hadana la weydiiyay wali gabadhiya su'aalays kadib hadana la weydiiyay waxa la yiri hadii aysan ku suura galin yani nin 1 milyan haysta xitaa hadii aad weysa ka waran la yiri marka hadana waxay ku jawaabtay mid milyan barkii haysta igama daraayo ay tiri marka alla naaga khatar waayaan ku dhahay iska ilaaliya nimanyo ya markaas ay tiri mid milyan barkii haysta xitaa igama daraayo tiri sheekadu marka ay halkaas maraysay nin jiifay kursi gadaashooda intu soo booday dadkii u dhaxaysay su'aalaha jawaabaha qof gadaashood jiifay oo kursi meeshii yaalo iska jiifay kiiba soo qeeliyay marka ninkii kursiga meeshii yilay soo qeeliyay marka wuxuu yiri wariyada sheekada markay kun gaarto
aniga kun hayste hal itoosiyo ya gabdhayahow sheekada milyan iyo milyan barkiyo maroosaye markay kun gaarto hal itoosiyo ilaa aniga haystay anaa kun ka haysta anaa diyaar oo guursanaya gabadha aad oo kale weeyaan ka ya aad oo kale weeyaan wallahi rag waa kii fursada aan beer dareenin rag waa kii jaanis ka faa'iideysta soo sidaas ma Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay iska daayaan lacagta mowqifka ay leeyihiin waa mustaqbal iyo hiigsi jacayl inay gaaraan ma sidaas ah aad weyn bal han dooqaaga inoo sheeganta inaad iska ogaatid laakiin millionaire inta kuma haystaba maxaa ku haysataa jacayl siin kari farxad intaas kaliya intaas ay ka badan ba waxaas waa la iskaga dabiyay ma iska daysa waxa ma jiraan baan ku aniga dhan baa dhar jacayl dumarka markay yiraahdaan dirin baan kula seexanaya oo kiido waa dhar jacayl lagu dhalaa ma sidaas ah aad weyn waa kuugu duceynayna ilaahay hay saalay igu duceey ama jacayl ku siinay laakiin aan lacag ba haysan waayay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay hani Yusra Habi sheekadeedii ayaa ugu dambeysay barnaamijka Maad iyo Sheeko dabcan barnaamijka hadii aan dib idin xusuusiyo sheekooyinka iyo waxyaabaha aad inoo haysaan waxaad inoogu soo diri kartaan nambarada shaashada ku xusan WhatsApp number ayaad inoogu soo diri kartaan fariin codeed ama waxaad inoo soo duubi kartaan video clip idinka oo sheekada aad haysan inoo sheegaya haddii intaas aadan samayn karin waxaad inoo soo diri kartaa fariin qoraaleed aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin barnaamijka Maad iyo Sheeko ayaa intaas inoogu idin hase ahaatee hani barnaamijka maxaan ku soo xiranaynaa barnaamijka aniga dooqaya markaan haba degdegin faad aniga ku soo wadaba may aniga way markayga ana ku soo wadaba inaad dooqdidba ha iga xanjinin ha ku sheegin baa jacayl hadda si kale loo aragdaa waayay barnaamijka waa Maad iyo Sheeko waan ku nacbay oo aan ku jeclahay isdaamar marka qaarkiis kaftanku uu furan yahay xitaa daawadayaashu way naga qayb gali karaan aad iyo aad heesta barnaamijka aan ku soo xiri leen hani bal waa dhankaaga adiga ku dhagtay aniguna adan ku deynaya ma aniga diidaysay aad weyn waayahay waxaan jeclaan lahaa hal codsi inaad dadkii hore inoogu soo xirto Xaliim Qalif Magool sidaas ma jeclaysay aad weyn xalay daruusti la ii dhigay intaan daawan lahaa wadayaxii habeenimo ila gala daruura marka inaad dantii wada ee dugsiga jira diyaaradaha ma raaco jacaylka uma duule hana xelajan bariyahan waa lahaayay bal heestaasi ayaan ku soo xiranaynaa barnaamijka Maad iyo Sheeko tan iyo kulanti dambe nabadgelyo barnaamijka waxaan mahad gaar ah u soo jeedinaynaa Aways Baazi oo dhanka kaamirada inaga hagayay iyo Mustafa Taako oo isagana kaamirada labaad inaga hayay sidoo kale Jibriil Shariif Barre iyo Maxamed Qadar iyo asxaabta kale dhammaantoodba aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa barnaamijka sida diiran ay inagula qayb qaateen dhammaan waxaan u mahadnaqaynaa dadka fariimaha la wadaagay mar kale ayay fariimahooda inala soo wadaagi karaan haddii ay jeclaystaan sidaas iyo nabadgelyo Shall
Thank you.